guddida abaaraha iyo maamulka gobolka Daadmareedh ayaa maanta deeq raashin u qaybiyay ilaa 400 oo qoys oo ka mid ah dadka ay abaaraha daran ay saamaynta ku reebeen isla markaana ay ka dhamaadeen xoolahoodii. deeqdan uu soo dhibay ganacsade Maxamed Yuusuf Cali Guray oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee dalkani Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana ku nool dalka dabadiisa, kaasi oo soo wakiishay deeqdan guddi culimo ah ayaa waxa halkaasi ugu horeyntii ka hadlay mid ka mid ah guddida uu soo wakiishay ganacsade Maxamed Yuusuf Cali deeqdan raashinka. bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. waxaanu ku suganahay oodweyne gobolka Daadmareedh. waxaanu maanta halkan u nimay inaanu ku qaybino deeqdii uu soo bixiyey Maxamed Yuusuf Cali Guray oo ugu deeqay dadka tabaalaysan isagoo markaasi doonayay inuu dhibaatada la qaybsado dadkiisa walaalaha. waxa ay deeq ahaan reer oodweyne heleen 400 oo qoys. waxaan kaloo aan halkan markaa uga mahadnaqayaa maamulka gobolka oo sidoo kale waxaa ibarbar taagan gudoomiyihii guddida abaaraha Sheekh Salaan iyo marti sharaf kale oo badan. waxaan kaloo yaro mahadnaqayaa ciidanka booliska oo yana si hagar la'aan ah noola shaqeeyay. aad baa u mahadsantihiin. gudoomiyaha guddida taakulaynta abaaraha ee gobolka Daadmareedh Sheekh Salaan Cabdiraxmaan iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Daadmareedh ahna kusimaha gudoomiyaha Injineer Maxamed Cabdullaahi ayaa iyaguna ka mahad celiyay deeqdan raashinka ee uu soo gaarsiiyay ganacsade Maxamed Yuusuf Cali. ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa tacaala. waxaynu halkan ku gudoomaynaa oo aynu kala wareegnay 400 oo qoys oo ay noo sideen culimo aad u fara badan oo Sheekh Axmed Cabdulqaadir hogaaminayo iyo tiimka kale la socda dhammaantood baad baan u soo dhaweynaynaa. deeqdaas oo ay soo dhiibeen uu soo dhiibay Maxamed Yuusuf Cali Guray. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu daro. waxay ku soo beegantay runtii waqti loo baahan yahay oo dadkii ay biyo heleen laakiin xaggii baahidii raashinka iyo baadku ay taagan tahay. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa isaga iyo cid kasta. magaaladii oodweyne waxaan ku gudoomaynay 400 oo qoys raashinkood. waxaa noo keenay ganacsade Maxamed Yuusuf Cali Guray. kullay maalin aad u barakaysan bay ku soo beegmato maalmo Ramadaan oo dadkina ilaahay ka soo jabiyay abaartii laakiin raashin la'aan ay jirtay Ramadaanna lagu jiro. ugu dambeyntiina dadkii la gaarsiiyay maanta deeqdan raashinka ayaa ka dareen celiyay deeqdan la gaarsiiyay isla markaana tilmaamay inay ku soo beegantay waqti ay u baahnaayeen. ilaahay baa marka hore mahad leh. halkan waxaan mahad ballaadan mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba uga mahadnaqaynaa Maxamed Yuusuf Cali Guray ganacsade oo bishaan Ramadaan dadkii abaaruhu soo mareen oo xanuunna soo mareen oo tabaalaysan u keenay raashinka mugga iyo sharafta leh. marka hore waa salaamantihiin. marka dambe ilaahay baa mahad leh. waxa weeye hay'adan dawlad maxaa wadaadada noo keenay raashinka ee noogu soo tumurucay waanu u mahadnaqaynaa. waxaanu leenahay garabkiina hambaliyo hambaliyo. marta ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahad leh asagaynu u shukrinaqaynaa. mar labaadka waxaan u mahad celinaynaa Maxamed Yuusuf Cali Guray oo ah ganacsade weyn oo maanta ugu tumurucay gobolka Daadmareedh 400 oo qoys raashinkood. sidaa awgeed waanu ku hambalyeynaa. waxaanu ku leenahay halkan ka soo saartay miisaanka xasanaadka allaha kuugu daro. waxaanu ku leenahay markii koobaad ay noqonay marka labaad iyo ka saddexaad iyo ka afraadba dadka intay abaaraha iyo gorogorada ku jiraan ka soo naxo u keenay. wassalaamu calaykum. Muuse Salebaan Maxamed, warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada Oodweyne.